weligaa mishaara ku shaqayn qodobkaaga qor walaal weligaa mishaara ku shaqayn waxaad ku shaqaysaa qiyamkaaga akhlaaqdaada ku shaqee edabtaada iyo karaankaaga ku shaqee xeerasha looma shaqeeyo xeerasha ha u shaqayn waxaad u shaqaysaa qiyamkaaga nacam akhlaaqiyaadka sare ee insaanka u shaqee maxaa ka mid ah tusaale haddii 7 biira soo gal lagu yidhi shaqada 6 iska soo gal 6 inaad soo gasho abaal kagama sugaysid managerkaaga iyo mulkiilaha shirkadaada waxaad abaal kaga sugaysaa naftaada because naftaadaad sharfaysaa waxaa la idhaha dadna qaar xeerasha u shaqeeyaan dadna xeerasha laftigooga u shaqeeya dad aduu iyadoo 7 laymaneed 6 timaado aduu xeerku kuu shaqeynaya because xeerkaad ka horreysaa marka haddii xeerasha aad hor socoto adigay xeerasha kuu shaqeynayaan deganaansho badan baad dareemi farxad badan baad dareemi waxaad qabanaysa inaad raalli ku tahay baad dareemi meesha yareed joogtana xidig baad ka noqoni dadka kale ku daydaa mushkiladeenu waxa weeyaan markaa qof walba wuxuu iska eegayaa saacaddaa yar buu eegayaa mishaarkaa yar buu eegayaa 30 bisha waa maalmahaad ugu jeceshahay dunida 10 bishana waa maalmahaad ugu necabtahay dunida because bargo baa tahay marka eg nolosheeniiba waxaad moodaa inay si ila meeraysa u tahay oo marna waxaad iriinaysaa mishaarkii marna waxaad ka ordaysaa waqtigii so taa goor maan ka bixi karnaa mar baan ka bixi karnaa markaan ka bixi karnaa waxa weeyaan nolosha intaan joogaynaa ma badno walaal haddaan ugu badano 6 maan joogaynaa marka 6 kaa soo doonno dee waad koraysaa waxbaad baranaysaa oo dugsi baa ku jirtaa oo waad rafaadaysaa amiin 25 wixii ka dambeeya shaqo diyaar u tahay soo ma okay so qayb way kaa tagto waa korriinkii qaybtan kale shaqada ha ka dhigan qayb kaa tagtay iyaduna oo walwal kaaga tagto oo nacayb waxaad qabanaysaa aanad necbayn aanad jeclayn aanad niyad u hayn aas khasbayso dadkeena badankiisu waxay wax u qabtaan qushi dee biilka yaa iga bixini waa ku maararoobayaa waan ku sug ma wax kale oo qabtaadii haysaa qushi baa nolosheenii oo dhan ay ku dhamaatay waxaad arkay nin weyn oo 60 jir oo weli qushi ku shaqaynaya qushiya marka morally waa daalaysaa niyadaadii baa daalaysaa maskaxdaadii baa daalaysaa jidhkaagii baa daalaya naftaadii baa daalaysa adoo isneceb baad dhimanaysaa hadhow waxaad qabanaysa markaad dib u eegtana aan ku faraxsanayn sida ha u dhiman hadda fursad baa haystaa wax walba ku bedeli karta fursaddaas waxa weeyaan ama waxaad jeceshahay qabo ama waxaad hadda qabanaysa jeclow dadka ugu farxadda badan la dunidu maaha dadka waqtiga badan haystaya shaqooyin yaroo fudfudud haysta lacagtu si fudud ay ku soo gasho maaha farxadda iyo deganaanshaha iyo wanaagga iyo waxa uu qofku qabanayo inuu jeclaado dadku la shaqaynayo jeclaado meeshuu joogo ka shaqaynayo inuu jeclaado waxaas ma keenaan badnaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim caafimaadkaaga muhiim u tahay noloshaada muhiim u tahay waxay muhiim u tahay ahaanshahaaga iyo dadnimadaada muhiim u tahay marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqayso marna adigaa iskaraamayn waxaad leedahay meeshaan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa naftaydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragto xeerka wax ka shisheeya waxa laga rabaa 100 200 baa bixinaya waxa laga rabaa 7 6 imanaya waxa laga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba talaaban ka sii horeynaya dadkaas qiimay oo adduunyada jooga dadkaas markaa dadka tirsama ee adduunyada isbedelka ku keenay maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqayso marna adigaa iskaraamayn waxaad leedahay meeshaan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa naftaydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragto xeerka wax ka shisheeya waxa laga rabaa 100 200 baa bixinaya waxa laga rabaa 7 6 imanaya waxa laga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba talaaban ka sii horeynaya dadkaas qiimay oo adduunyada jooga dadkaas markaa dadka tirsama ee adduunyada isbedelka ku keenay maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim